si hadalka Alle u faafo una yaraadaan hadallada kale ee aan macnaha badan lahayn, si hadalkii nebigeenu u gaadho ummadda dhammaanteed, si hadallada culimada ee cidlada ku dhacaya ay u faafaan, si wanaaggu u faafo xumuhuna u yaraadaan. Waxaa aniga iyo adigaba kugu waajiba in ugu yaraan hal qof aad la wadaagtid muuqaalkan iyo muuqaal kasta oo khayr ka hadlaya. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق والنبي يقول عليه الصلاة والسلام dadka inta u badan baa nabiga la weydiiyay jannada maxay ku mutaystaan alla ka cabsi iyo dabeecada wanaagsan buu nabigu akhlaaq xaqqa ilaahay kugu leeyahay ma gudi karaysid haddaan alla ka cabsi lahayn xuquuqda bini aadankana ma gudi karaysid haddaan dabeecada wanaagsan lahayn dabeecada wanaagsan waa maxay saddex shay buu ku macneeyay Abdullah ibn Mubarak talaqatul wajhi wa kaful adha وبذل المعروف طبيعة وناسل waxay ku macnaayeen culimadu waa inaad ahaato qof mar walba waji furan bashaash iska faraxsan doola cadeynaya asagoo dhibaata ay haysato dadka dhibkiisa ka qarsanaya asagoo laga cadhaysiiyay walkaadimiina alghayda ku sifoobaya cadhadiisa qarsanaya man kadama ghaydan وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها نيك لغا قرد الروضي إن لغو حد قد بحقيسي كريا إنو حقيسي نيكا كسور دعيو عرضي اسكو علي يبو نبي لكن شخص قبو قرد الروضي إن حقا كسور ردتا أما هذا إسكع عليسا وهذا أودا لكن إلهي درتي ما ضفت عرضي أنتو إسكع عليسي أي هذا إسكع سعطوط وإسكع عفني ما حابالك أقول نغنى يا متقنا مالك قيامه إلا قتيه إلا قاويه أي إلهي خلائق أنتو كاسو دحسارو حور العين من دمد إذا كسي قروح بدن أي كسو نقيس المولد دونا بدل طلاقة الوجه بدل المعروف أخلاقنا وناس نروح على قول حلائق dadka dhibkaagana ka hayso akhlaaqda wanaagsan waa halka ugu hooseysa dadka oo dhibkaaga aad kala fadhiisataa meel la gacantaada aad ku dhibtaa wala carabka aad ku dhibtaa بدل المعروف dadka wanaag u sameey adigu ki adiga xumaan ku sameeyay adigu wanaag u sameey Hasan al-Basri Allah una xariistay baa lagu yiri ninba maalin walba adiga ku hadal haya baa lagu yiri ku xanta wuxuu soo diray dabaq timir uu soo diray ajwa وعرنيكا walaalkay waxaad ku tiraahdaa hadiyadaadii way soo gaadhay aniga hadiyadayda iga guddoon buu kay hadiyadaadii way soo gaadhay bimaana walaalkaaga muslimka oo ku ogeyn hadaad xamato ama xaqiisa aad ku xadgudubto amalka saalixada adduunka dusheeda ku shaqaysata qiyaamaha asagoo madu wadaayo ugu salaadaada soonkaaga zakadaada صدقتها وعدك قرآنك خير واحد شقيستو dadkii muslimiinta adduunka dusheeda qaarna aad ku xamatay qaarna xoolahooga aad ku dhacday qaarna aad ku dishay qaarna maaragtane waxay dhahayn aad ku sheegtay ayakoo baa qiyaamaha camalkaaga loo qaybin dambi dad kale ay shaqaysteen adiga naarta lagu geyn xadiiska ku sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam marka hadiyadaadu way soo gaadhaa buu maalin walba loo soo hadiyay أنا كنا هدية أنا كوسو درنا نجا قادم نجا بدو